wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa gaaray caasimadda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxaana madaarka kaga horyimay kuna soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Jamhuuriyadda Jabuuti Cabdiqaadir Kaamil Maxamed sidoo kale soo dhaweynta madaxweynaha waxaa ka qayb galay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti iyo mas'uuliyiin kale oo hawlo shaqo u joogay dalkaasi oo ay kamid ahaayeen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xildhibaano iyo Dr. Aadan Ismaaciil qadar nashashaa oo wafdiga madaxweynuhu ay ku qaateen gudaha madaarka kadib waxa loo galbiyay qasriga madaxtooyada ee dalka Jabuuti halkaasi oo ku qaabilay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle intaas kadib lamada madaxweyne waxay yeesheen kulan muddo qaatay kaas oo laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee labada wadan ka dhaxeeya ee dhinacyada amniga ganacsiga iyo socodka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga hogaaminaya ayaa dalka Jabuuti ku sugnaan doona muddo 3 maalmood waxaana la filayaa in kulamo intan ka badan ay wada yeeshaan madaxda dalka Jabuuti wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminaya waxa qayb ka wasaaradaha madaxtooyada duulista hawada warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maalgashiga iyo horumarinta warshadaha dhalinyarada iyo ciyaaraha taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka iyo madaxa xafiiska madaxweynaha Cabdicasiis Saciid Cilmi warbaahinta qaranka